maalin qura ayuu baraha bulshada oo dhan qabsaday dulminihii 30 sano oo waalna jecel dartiis gabadhii uu almaadena balanta uga baxday. ninka ka hadlayna ma ahan Bowderi ama Qays iyo Leila ama qof kale. waxaan ka hadlaynaa maanta Cabdinuur lagu garan ogyahay ama kuma dheer adeera hadda ku nool Kismaayo 30 sano ka horna u waashay jacayl gabar u jeclay balanta uga baxday. Maxamed Cabdinuur oo kuma dheer adeera waxa uu ku dhashay deegaanka Koban ee hoostaga Jubbada Hoose. xilliga dowladda dhexe Soomaaliya ayuu jeclaaday gabar ay isku deegaan ahaayeen. wada hadal iyo xasaabo dheer kadib waxa ay ku ballameen in uu guursado gabadha. markii uu fasalka soo go'o kadib wixii beerta ka soo baxa uu iibgeyn doono magaalada Muqdisho. wixii lacag uu soo helana uu ayada guursan doono. laakiin taasi ma aysan dhicin. adeera intuu magaalada Muqdisho ku maqnaa ayaa gabadhii waxaa guursaday nin kale. markii uu imaaday adeera loona sheegay in gabadha la guursaday meesha ayuu ku mir daboolmay. hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Kismaayo. waxa uu hor fadhiyaa maxkamad horteeda asigoo sugaya inuu maalin un heli doono cadaalad, sida uu u sheegay Universal TV oo dhawaan ka soo hormuuqday. adeera waxaa qabsaday muujado aan ku guuleysan. Maxamed Cabdinuur waxa uu ku nool yahay wadooyinka Kismaayo asigoo ka muuqda duruufta jacaylka 30 sano ka hor uu soo jilayo oo u waashtay. kadibna waxaa intaas u dheer inuu garabka ku sido jawaankii lacagta ku soo qaaday 30 sano ka hor. maadaama xilligaas aan la isticmaali jirin EFC ama dadka Soomaaliyeed xilligaasi aysan garan jirin la isticmaali jirin shilinka Soomaali ee kaliya. adeera hadda waa dhibine la nool waali ka soo gaartay jacayl dartiis.